sanado badan kadib waxaa ilays u ka bidhaamay muuqaalka xilliga habeenkii ah ee ka jira magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya. leerarka ku shaqeeya milicda cadceedda ee soolarka oo cusub ayaa lagu xiray jidadka magaalada muqdisho, waxaana maamulka gobolka banaadir uu dayactir uu ku sameeyey leerarkii hore ee waddooyinka laamiyada iyo jidadka xaafadaha ku jiray. isku socodka dadka iyo gaadiidka ayay sahleen leerarka lagu soo kordhiyey magaalada. wax badan ayaana iska beddelay muuqaalka caasimadda xilliga habeenkiiah. kuwani waa dhallinyaro laamiga dhexdiisa ku ciyaara kubadda cagta. waxa ay ii sheegeen in habeen walba xilli dambe ay ku gaaraan ciyaartan, islamarkaana ay ka faa'iidaysteen leerarka kulaylka cadceedda ku shaqeeya ee lagu soo kordhiyey jidadka magaalada muqdisho. waxaana ay u mahadceliyeen maamulka gobolka banaadir oo tiro badan oo leerarka soolarada ah ku xidhay jidadka magaalada muqdisho, kuwii hore ee magaalada ka jirayna dayactir ku sameeyey. horta ilaaskan horta awal waa noo dhagsan jiray 2004 soo galay magaalada saas leeyahay wuxuu naga go'sanaa 2 sano ilaa 3 sano ku dhawaad. marka waxa ku faraxsanahay ilaaskan noo la soo celiyay. hadda u jeedaan dhalinyarada meeshaan ay boona ku baashaalayaan alxamdulillah ilaa habeenkii 6 saac ilaa 6 saac ilaa suxuurta xataa inta gaarnay iska dhilnaa. alxamdulillah waxa uu madcineynaa dawladeena oo heerkan soo gaarsiisay. hadda wuxuu taa awal xataa ilaaska cadaan u ahaan jiray, baawrka xataa reflection ku tuuraa, baawrka inuu ka qabanaa. laakiin hadda u jeedin sida caalamka oo kale loo sameeyay halkan oo kii oo waxyar oo guud ku jiro. alxamdulillah baawrka fiican maray anayna sana iska baashaanaa. isgoosyada magaalada muqdisho waxaa jooga askar amniga sugta, waxaana qudhoodu ay u sahashay in leerarka kulaylka cadceedda ku shaqeeya ee maamulka gobolka banaadir magaalada uu ku soo kordhiyey kuwii horena uu hore u dayactiray in ay si sahlan u baaraan gaadiidka dhex gooshaya magaalada muqdisho xilliga habeenkii ah. dadweynaha magaalada muqdisho ayaa qaba in ay ka gudbeen dareenkii cabsida ee mugdiga xilliga habeenkiia, waxaana ay sheegeen in magaalada muqdisho hadda ay tahay magaalo aad ay u soo bidhaantay bilicdeeda ilayska habeenkii. waxaana ay sheegeen in ay u kala gooshaan xaafadaha magaalada muqdisho iyaga oo ka faa'iidaysanaya leerarka ku shaqeeya qorraxda ee soolarka ee gobolka banaadir uu ku soo kordhiyey magaalada muqdisho, kuwii horay ugu jirayna dayactir uu ku sameeyey. aad aan u dareensannahay muqdishona wax badanna iska beddeleen, cid kastaba waa og tahay. maasha allah xilligan muqdisho waxaa la marayaa 12 cid socon jirtay malaha. maasha allah nabad aad u ballaarnaa jirto. waxaa ku faraxsanahay iftiinka muqdisho, nabadda, wada socodka gaadiidka, bulshada saa wada dhaqmayso, si aad iyo aad ayaa ugu faraxsanahay. cabdicasiis ibraahim axmed okey, TV Universal, magaalada muqdisho.